halkan waa Ciraaq, dhulka dadkiisu ay ugu yeeri jireen waqti ka hor bilaadu raafidiin, laakiin maanta ay ka doorbideen in ay ugu yeeraan bilaadu saxraa. اي تروح بعد ماكو بلاد الرافدين، بلاد الصحراء. muuqaalkan waxaynu ku eegaynaa maxaa sababay dhammaadkii baaba'a labadii webi ee dhulka xadaaradii ilbaxnimada Ciraaq. intayna muuqaalka u gelin fadlan like saar muuqaalka kuna soo bir madashan. Ciraaq taariikhdeedii hore ee guunka ahayd iyo mideeda haatanba waa mid ku tiirsan labada webi ee Tigrid iyo Furaat. 70% biyaha Ciraaq waa kuwa ka imaada labadan webi, halka 30% ay yihiin biyaha kale ee laga helo Ciraaq iyo webiyaasha kale ee ka imaada Iiraan. laakiin nasiib darro, biyaha webiyaashan ee Tigrid iyo Furaat kama imaadaan dhulka Ciraaq, waxay labaduba ka imaadaan gudaha Turkiya. 71% biyaha Ciraaq waa kuwa ka imaada Turkiya, halka 10% ay ka imaadaan Syria iyo Iiraan. taasoo macnaheedu tahay in 81% biyaha Ciraaq ay maamulaan dalalka deriska la وهذا الجفاف انعكس بشكل مباشر لسيطرة بعض الدول مثل تركيا وإيران على منابع المياه. هذه السدود أثرت بشكل مباشر على نهري دجلة والفرات. kadib 1970kii wuxuu Turkigu dhisay in ka badan 20 dhaam qaybtiisa webiga Furaat, kaasoo ugu dambeeyay Ataturk Dam oo ah biyo-xireenka shanaad ee ugu weyn adduunka, halkaasoo Turkigu ka dhaliyo koronto aan xaddi lahayn, halka Syria ay u dhisatay dhowr biyo-xireen qaybteeda kaga soo aaday webiga Furaat. sidaasna waxaa ku wiiqmay qulqulkii xoogganaa ee webiga Furaat. wuxuu Turkigu mar kale si la mid ah webiga Furaat uu ka dhisay 10 biyo-xireen webiga Tigriit, waxaana ugu dambeeyay Uluzzu Dam oo la dhameeyay dabayaaqadii 2018. labadan biyo-xireen waa kuwa sababay inay yaraadaan biyihii ugu badnaa ee soo gaari jiray Ciraaq. sidoo kale waxaa jira webiyaal yaryar oo ka imaada Iiraan, laakiin Iiraan waxay si la mid ah Turkiya ay kaga xiratay biyo-xireenno waaweyn, kuwaas oo yareeyay qulqulkii biyaha ee soo gaari jiray Ciraaq. sababta ay waxaanu idil u dhacayaan waa inaysan jirin dowlad Ciraaq ah oo awood u leh inay ittifaaq la gasho Turkiya iyo Iiraan. laakiin Ciraaq sidaan mayn ahayn ka hor duulaankii ciidamadii Mareykanka ee 1990kii iyo 2003. dagaalkii gacanka Beershiya ee 90maadkii ayaa Saddam oo ahaa madaxweynihii Ciraaq ayaa ku duulay dalka la deriska ee Kuwait. kadib ciidamadii Mareykanka ayaa weeraray Ciraaq, waxayna burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha ee Ciraaq oo ay ka mid ahaayeen biyo-xireenadii waaweynaa ee dalka. kadibna waxaa xigay duulaankiisii labaad ee 2003, kaasoo Ciraaq ka dhigay mid ka baxa taariikhda adduunka. halkani waa Basra, magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq, ahna magaalada ganacsiga ee dalka. waxay noqotay sidatan kadib markii biyuhu webiga yaraadeen. kuwani waa kanaaladii Basra, magaaladii mar lagu magacaabi jiray Finiista Bariga Dhexe, oo biyihii magaalada ay xireen qashinku. Here lies the great port of Basra, the crossroads of the world's trade. It fed dozens of canals throughout Basra and earned the city the nickname the Venice of the Middle East. But this is what Basra's canals look like today. نريد الماء منكم، ما نريد منكم رواتب، لا نريد منكم شيء، نريد كم تعطونا الماء، الله بالك تعود عيني على الحيوانات ونعيش.